gantaalkii weynaa ee Shiinaha ee faraha ka baxsaday ayaa la filayaa inuu dhamaadka asbuucaani ku soo dhaco dhulka waxaana toddobaadkaani sababay cabsi aad u weyn. hay-adda cirbixiyeennada Mareykanka ayaa isku dayaysa in ay ka hortagto halista uu geysan karo balse lama oga halka uu ku wajahan yahay. gantaalada hawada sare ku burbura dhowr jeer oo hore ee dhulka ku soo dhacay waxaa ka mid ah mid sanadkii la soo dhaafay burburay. hase yeeshee dhacdadani ayaa waxa ay sababtay su'aalo cusub oo ku saabsan gantaalka ay dunidu ay aadka u hadal hayso. gantaalkaani laga leeyahay dalkaasi Shiinaha ee hawada ku farabaxsaday haddaba goorma uu soo gaaraya dhulka. gantaalkaani dheereeya ee Shiinaha ee 5GB ayaa la filayaa inuu hawada uu ku soo dhaco dhulkana uu soo gaaro qiyaastii 8 bisha May oo aanu ku guda jirno sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afhayeen u hadlay waaxda difaaca ee Mark Harwood kaasi oo uu ku sheegay in maamulka hawada sare ee Mareykanku ay ku daba socdaan gantaalkan hawada ku farabaxsaday. lama xaqiijin karo meesha uu dhulka uu kaga dhici doono ilaa la gaaro saacadaha ugu dambeeya sababtoo ah xawaaraha uu ku socdo gantaalka ayaa aad u sareeya ayuu yiri Harwood. balse waxaa la soo saari doonaa macluumaad maalinle ah oo la xiriira halka uu marayo iyo sidoo kale goobta la filayo inuu ku dhici karo gantaalka. haddaba maxaa dhacaya haddii gantaalku uu dhulka uu soo gaaro? gantaalkani oo dhererkiisu yahay 30 mitir ayaa haatan dunida aad ugu wareeganaya 90 daqiiqo kastana waxaa la sheegay inuu xawaarihiisu yahay mid aad u sareeya sababayna in ay qubarada cirbiyeennada ah ay qiyaasi waayaan iyo sidoo kale halka uu jaaniyad ciribtoona dhigay. waxaana la sheegayaa in waxyaabaha xaaladda sii cakiraya ee adkeynaya dunida ku sii adkeynaya inay yihiin oo laga walaacsan yahay in gantaalku xawaarihiisu uu yahay mid sare ku sii soconaya. Shiinuhuna uusan la wadaagin macluumaad wadamada la filayo ee aadka u badagoobaya in uu la wadaago wax macluumaad maadaama Shiinuhu ka duruqsan yahay wadamada kale ee caalamka. haddii gantaalkani uu ku soo dhaco dhulka gaar ahaan goobaha ay dadku ay ku nool yihiin natiijadu waxay noqonaysaa sidaas daraadeed mid aad u yar wax yar ayaana la filayaa inay dadka soo gaarto oo khasaare ah. waxaana sidaas sheegtay Jonathan McDowell oo hawada sare ee xarunta jaamacadda Harvard ka tirsan oo la hadlay warbaahinta qaar. nasiib wanaag sidaas daraadeed khasaaraha dadka dhismooyinka ama deegaanada soo gaaraya aad buu u yaraan doonaa ayuu yiri. waxaan ogsoonahay in dhulka 75% uu yahay dhul biyo ah waxaana dheer intaasi in goobo badan oo kamid ah dhulka aan la deganeyn sidaas daraadeedna qatarta ka soo gaaraysa dadka ayaa noqon doonta gantaalkan mid aad u yar. gantaaladii hore dhulka ugu soo dhacay kuwa kamid ah ayaan idin la wadaagi doonaa. gantaal 18 tan ah ayaa bishii May ee sanadkii la soo dhaafay soo dhacay kaasi oo la sheegay inuu ahaa gantaal aad u cusla taniyo gantaalkii ku lumay hawada sare ee midowga Soviyetic sanadii 1991 sanadii 2016 gantaal lagu talagalay xarunta hawada sare ee ugu horeysay ee Shiinaha waxa uu ku burburay oo uu ku dhacay badda Pacifiga kadib markii Beijing ay xaqiijisay in uu ka lumay xawaarihii loogu talagalay gantaalkan. bishii Maarso gantaal lagu magacaabo Falcon 9 oo Mareykanku hawada sare u dirsaday ayaa ku soo dhacay dhulka gaar ahaan Washington iyo xeebta Oregon ee dalka Mareykanka halkaasi oo la sheegay inuu ku soo dhacay gantaalkaas. gantaalkan haddaba si aad ayaa lagaga hadal hayaa caalamka waxaana uu noqonayaa gantaalkan mid si aad hadan loogu hadal hayo tankiisu aad u culus yahay maadaama gantaalkan laga cabsi qabo inuu ku soo dhici karo qaybo badan oo kamid ah wadamada caalamka. waxa la sheegayaa in qaybo kamid Afrika uu ku soo dhici karo laakiinse xaqiiqada lama hubo laakiin waxa la fili karaa inuu gantaalkan dhulka soo gaari karo maadaama culeyskiisu aad u weyn yahay. sida Shiinuhu uu sheegay gantaalkan waxa uu noqday mid ka farabaxsaday sida ay sheegtay waaxda arrimaha hawada ee dalkaasi Shiinaha. haddaba aragtidaadu adigu sidee kula aragtaa in gantaalkani Shiinaha ka baxsaday ma sii daayeen mise gantaalkan Shiinaha uu ka baxsaday? waxaan ogsoonahay in 2019 Shiinuhu nagu soo daayay coronavirus gantaalkan ma nagu soo dayn doonaa?